Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda qaaliga meel walba joogtaan aadayaan idiin salaamayaa waxaan idin rajeynayaa khayr badan oo aniga Faadumo Filsana soo dhawaada ayaan idin leeyahay maanta waxaynu sameynaynaa alaab yar oo fudud oo maxaa la dhihi jiray si fiican iskaga daweyn kartid quman xanuunka hargabka qufaca digsiga waxaan ku shubanay 2 koob oo caano ah waxaan ku darnay 1 qaado oo maxaa la dhihi 2 xabbo oo toon ah oo qaadada aan ku shubay qaadada haafkeeda oo filfil ah intaas ayaan isku darnay dabka ayuu saaran yahay dabkana zaa'id kuma aha aad uma karkaraayo sababtoo ah dabka waan ka gaabiyey dhexdhexaad camal aan uga dhigay dabka waxaan ku daraynaa marka 1 qaado oo sonkor ah sonkor hadaa rabto waa ku darsan kartaa hadaa rabtana waa iska dayn kartaa kolba sida adiga aad rabto ayaad ka dhigan kartaa sababtoo ah maadaama haddana malab ku daraayo aniga 1 qaado sonkor ayaan ku daray marka sonkorta hadaa adi sonkor jeceshahay 2 qaado ku darsan kartaa hadaa dadka sonkorta neceb tahayna waaba iska dhaafi kartaa dadka anigoo kale hadaa tahayna 1 qaado le kugu filan marka maasha Allah hadda dabka ayaan u deynaynaa waa isku soo walaaqnay sooma isku labnay marka hadda way is dhex gashay sooma dabka ayaan u deynaynaa si ay u soo karkarto sida shaaha oo kale sababtoo ah inay si fiican isu dhex galaan ayaa fiican oo si fiican isula karaan si fiican bay insha Allah u soo kari doonaan annaga Soomaali hadaan nahay mudaawaadka iyo maxaa la dhihi jiray waxa la isku daweeyay waxaas oo dhan caan baa ku nahay dhaqaatiirta xataa hadaad waxyaalaha qaar markaa u sheegto waa kula yaabay waxay leeyihiin wow saa u samaysay yaa annaga Soomaali la dhahay wax kasta waa naqaanaa caani hadda saas u soo kareen maasha Allah saas oo kale u soo kareen waxa fiican inay si fiican u karkaraan si filfisha iyo toonta iyo caanaha si fiican isu dhex galaan sababtoo ah haddii iyagoo diirimaad bas ay ka qaadid weli ismay dhex galin laakiin saas oo kale isu dhex galaan okay waaye hadda way soo kareen waan ka qaadaynaa waan soo miiri doonaa oo kaas hadda waa miiraynaa waxaan ku yiri waa ka soo tuur si fudud dhib ma aan lahayn caanaha hadda waa miiraynaa maasha Allah asxaabtayda qaaliga ah aad ayaan idinku mahad celinayaa meel walba joogtaan soo dhawaada ayaan idin leeyahay channelku waa channelkiini waxaan idin rajeynayaa caafimaad badan khayr badan bashbash iyo barwaaqo ayaan dhammaantiin idin rajeynayaa walaalahayga qaaliga ah hadda caanaha waa miirnay waan soo qaboojinaynaa wax yar hadda markaa miiro sababtoo iyagoo kuleyl ah oo zaa'id u kulul laguma dari karo malabkaas ayaan rabaa inaan ku daro marka iyaga hadda waa inay soo qaboobeen markaa qaboojisid halkan waxaa igu jira 2 qaado oo malab ah oo koobka aan ku soo shubay caanihii mar hore soo qaboojiyay hadda koobka ayaan ku shubayaa kuwaas caanaha iyo malabka ayaan haddana isku labaynaa isku walaaqaynaa si fiican say diyaar la cabi kara ay u noqdaan waxaan ku yiri hadaad alaabtan hadaa isticmaasho habeenkii koob ka isticmaasho aroortiina koob ka isticmaasho waa hubaal maasha Allah dhaqso ayuu ka baxayaa xataa hargab haduu ku hayo dhaqso ayuu ka baxayaa si fudud ayaad uga dawoobaysaa wax kasta quman xanuunka